iyadoo guud ahaanba Somaliland laga xuso maalinta dhibirista oo aastaysan 15 bisha Abriil ayaa maamulaha wasaaradda deegaanka ayaa saaka waxa xafiiska wasaaradda ku leedahay degmada Gardag uu ku qaybiyay dhir tiro badan kaasoo loogu talagalay in lagu beero shaariciyada magaalada Gardag. Maamulaha wasaaradda deegaanka Cabdi Colaad Jaamac iyo maayirka degmada Gardag Mudane Faarax Aadan Ciise xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Gardag Cabdiraxmaan Jaamac Ducaale ayaa ka warbixiyay ahmiyadda ay qaranka Somaliland iyo degmada Gardag ba u leedahay maalintan. Sidoo kale dadweynaha ku dhaqan degmada Gardag ku dardaarmay inay ku dadaalaan sidii ay u beeri lahayn dhirtan isla markaana ay ugu tabci lahaayeen sidii ay degmada Gardag u noqon lahayd mid diraysan. maanta waa maalin weyn Jamhuuriyadda Somaliland loo qoonteeyay maalinta dhirbeerista marka maanta waxay u diyaar garoonayeen inuu dhirta beero iyadoo xilli jiilaal adag lagu jiro haddana dhirtii badnayd ee loogu talagalay degmada labada degmo Elfweyn iyo Gardag waxaan isla qaadanay maamulka heer gobol iyo heer qaranba in aanu roob kale sugno oo marka roobka hore roobka soo horaanto marka in dhirtu beermayso aanu beero sababtoo ah hadii la beero xilliga jiilaalka abaarta waxa weeyaan xayawaanka looga baay cayayaan oo dhan baa cunayo waxa weeyaan ma suuro galayso oo haraad baa jira sida ogtiin oo fustada biyaha macaan oo heer ka taagantahay 40 marka waxaan la sugno xilli roobku doo marka dhirta markaas wasaaraddu ballan qaaday inay soo rayso ilaa kungeed Elfweyn iyo Gardag marka maanta waxaan xusaynaa maalintii loo qoonteeyay maalinta dhirbeerista Jamhuuriyadda Somaliland oo ah 15 Abriil sida awgeed waxaan u diyaar u nahay inaan dhulkayga bilic u sameeyno beero dadweynaha iyagu uu saasuu raali ku yahay annaguna saasaan u jecelahay inaan mar walba dhirta uu taabeelo si dhulku bilic u yeesho waxay ku aastaysan tahay maalintii dhiraynta qaranka Jamhuuriyadda Somaliland 15 Abriil sanad kasta waa la qabtaa munaasabadan imika waxay ku soo beegantay xilli abaareed sida maamuluhu uu soo sheegay qorshahaas waa la isla qaatay waana laga dadaali doonaa insha Allah imikana halkan oo joogno waa arkaysaa inay green tahay waxa laga sameeyay dadaal badan oo dhinaca ma garanaysaa dhiraynta iyo ma garanaysaa daryeelka dhirta ama deegaanka insha Allah waxaan ballan qaadaynaa dhirtaas markay soo gaadho in sida ugu suurtagalsan ama ugu haboon lagu beeri doono meelaha ma garanaysaa ku haboon tahay dadkana waxaan ugu baaqaynaa in dhirta la beero waayo waxa weeye haddii geed la beero nolosha ayaa hagaagaysa haddii geed la jarana nolosha ayaa si baabaaysa marka dhibaatada dhir la'aantu inagu hayso waynu dareenay roob la'aanta iyo cadceedda iyo dabaylaha dheeraadkaaba waxa keena xaalufka deegaanka iyo nabaad guurka ciidda marka arrimahaasna aad iyo aad baan ugu dadaalaynaa insha Allah dadka ku wacyigelin maanta way ku taariikhaysan tahay maalintii dhirbeerista Jamhuuriyadda Somaliland waxaanu xafladeedii aanu ku qabanay howlkan oo maamulaha deegaanku hawshiisa uu wato waxaana ay noo sheegeen in dhirtii ay soo socoto ugana meel taalo inay keenayaan Gardag iyo Elfweyn muddada raxmaadka la filayo ilaahay xaqiisa laga filayo ka degmahan roolkaanu kale nahay inaanu wasaaradda deegaanka kula shaqeyno annagana waa naga diyaar waxaanu leenahay baarg waad shaqeysaa maamule adiga iyo wasaaradda iyo adeerkeed kale yahay aad iyo aad baa u shaqeysaan